qofka aad calaamadahan ku aragto ka fogow oo naftaada iyo noloshaada ka dheeree si uusan saameyn kuugu yeelan maxaa yeelay qofaan horumarkaaga rabin dadaalkaaga rabin ku dhiirigelinaynin markasta lugooyo kugu ah jecel isaga inuu hormuud kuu noqdo aanan ogoleen inaad sinaataan dadka iskala weyn qofka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada ku xiran channelkayga Farxiya Cabdalle meel walba dunida ka joogtaan soo dhawaada waa aniga Farxiya Cabdalle Moomina iyo muuqaal cusub haddii channelka aad ku cusub tahay soo dhawow oo subscribe ii saar haddii dadka aniga hore iila jeega aad ka mid tahayna adiga laftarkaaga soo dhawow oo ehelka channelkayga ayaad baa qayb ka tahay maanta barnaamij xiiso badan ayaan idin hayaa oo aan soo darsay waan filayaa in aad ka heli doontaan maxaa waaye waa 9 calaamadood oo aad ku garan karto qofka xun iska ilaali mawduuca wuxuu ku saabsan yahay 9 calaamadood ama astaamood ee aad ku ogaan karto qofka xun kadibna aad dib uga degaysid okay dunidan aan joogno ee aan ku noolnahay qof dhameystirani ma jiro waa sax dadku marar badan waa ay qaldamaan okay balse qofka wanaagsani qaladkiisa waa uu ogyahay oo durbo uu ka soo laabtaa yacni qof aan qaldamin ma jiro bini aadan baa leeyahay waa la qaldamaa yacni qof baa dhibaato geysta laakiin qaladka qofku waa uu qartaa oo uu ka soo laabtaa laakiin waxaa jira dad xun oo laga yaabo inay kugu milan yihiin adiga hadda i daawanaya isla markaana aad u haysato ruux wanaagsan haddaba iska ilaali qofkaas oo il gaara u lahaw okay 9 aan idin sheegay kan ugu horeeya ayaan galaynaa kow qofka xun wanaagaaga ayuu ka faa'iidaystaa waxa uu kula soo hadlayaa marka uu dangaara ka leeyahay oo qura marka aad dhibaataysan tahay ama adiga aad u baahan tahay lagama yaabo inaad hesho kuma damqanayo marka aad meel wanaagsan marayso ama wax qurux badan aad samayso ama talaabo aad hore u qaado ma kula farxayo maxaa yeelay qofkaasi waa qof xun uu ka xun yahay talaabadii adiga aad hore u qaaday ama horumarka adiga aad ku talaabsanayso okay number 1 waa isla fahanay number 2 ama number 2 marnaba ma qaldamo inuu qaldamin ayuu aaminsan yahay inuusan qaldamin ma qaldame waa Allah okay waxa dhici karta inuu qof dhibaato xoog leh isaga u geysto habeenkiina uu si wanaagsan ku hurdo fiican uu lado sidii inaanu wax dambi ah geysan oo kale haddii aad weydiisan wuxuu ku leeyahay ruuxa aniga ma qaldani yacni qalad maba lihi oo waa layga qaldan yahay ma ahan qof qaladkiisa qaata qofka xun number 2 waa isla fahanay okay lambarka 3 muxuu yahay amba number 3 qiyaanadiisu way badan tahay iska ilaali qofka xuni qiyaanadiisu way badan tahay okay wax walba sidii uu jecel yahay inay u dhacaan ayuu rabaa dadka kale qiyaano iyo xeelad ayuu u adeegsanayaa marna kama labalabeynayo arrinkaasi waayo wuxuu aaminsan yahay inuu hadafkiisa nolosha isagu gaarayo cajiib okay lambarka 3 waa isla fahanay number 4 ama lambarka 4 qofka xun ama dadka xumi waxay jecel yihiin inay wax walba gacanta iyaga ku hayaan ama qofka xun wuxuu jecel yahay in wax walba isaga uu gacanta ku hayo marka ay hawl ka qayb yihiin waxay jecel yihiin in wax waliba iyaga ay gacanta ku hayaan wax walibana ay u shaqeeyaan sida doonistoodu ay tahay yacni inay iyaga hormuud u ahaadaan qofka xumi saasuu jecel yahay inuu wax walba asaga hormuud u ahaado war hebela ka hormarayo ma ogolo war hebela dhinac taagan ma ogolo war hebela hawshan kula qabanayo
ma ogolo yacni wax walba inay hormuud u ahaadaan ayay rabaan oo walaalkooda waxba lama rabaan. number 4 waa isla fahme. 5 muxuu yahay? 5 waxa waaye waa laba wajiile. qofka xun waa laba wajiile, waa dareemaysaa. okay, qof kasta oo uu qiyaanayo weji gooni ah ayuu kula dhaqmayaa oo kan kale uusan fahmi karin. weji gooni ah oo isaga u gaara oo qofka kaleeto uusan fahmi karin ayuu ku dhaqmayaa. cajiib, waa kaartoole. maanta waxaan jafaynaa soo maaha, iska ilaaliya. okay, lambarka 6 ayaan u gudbaynaa. wuxuu aaminsan yahay in wax waliba uu xaq u leeyahay inuu helo isagoo aanan wax dadaal ah ku bixinin. wax dadaal ama dhaqdhaqaaqa isagoo aan samayn ayaa waxa uu jecel yahay inuu wax waliba uu isaga xaq u leeyahay inuu helo. cajiib. waxaan wada ognahay in dadaal dheeri ah aan ku bixino iyo juhdi fara badan si aan u gaarno hadafkeena iyo waxyaabaha aan ku haminayno oo horumarkeena ah. laakiin dadka xunxun xaalkoodu sidaas waa uu ka duwan yahay. waxay aaminsan yihiin qof kasta oo ay la kulmaan inay abaal ayaga ku leeyihiin. waa qof kasta uu la kulmay inuu abaal ku leeyahay ayuu u maleeyaa. wax kasta oo uusan u fikirina waxa uu jecel yahay inuu helo. waxa uuna dhinac u riixayaa qofkii usoo dhabar adeegay. cajiib. waxa uu dhinac u riixayaa qofkii usoo dhabar adeegay. okay, number 7 waxa waaye 7 u gudbaynaa. waxa ku jirta isla weyni aan la garan karin. isla weyni baas oo aan la ogeyn meelay ka imaatay ayaa ku jirta. isla weyni allah subxaanahu wa tacaala keliya ayay u sugnaatay. isla weyni baas ayaa ku jirta. ma ogola in qof waliba ay isla jaan qaadaan oo si unbuu iskala weyn yahay isagoo taasi u arka ilbaxnimo inay tahay. laakiin ilbaxnimo ma ahee, waa jaahilnimo. qof walaalkaaya muslim kula ah sidaad u shaqaysato u shaqaysanayo, sidaad u libisato u libisanayo, sideed iskala weynaanaysaa? waa jaahilnimo, waa reebaadiyenimo ee ilbaxnimo ma ahan. isla weyniduna ilaahay unbay u sugnaatay, aadana uma sugnaanin. okay, taana waa isla fahanay. 8 ayaan fiirinaynaa. calaamadaha weli qofka xun uu leeyahay ayaan ku jirnaa. waa beenaalayaal. iska ilaali. beentu waxay ka mid tahay noloshooda caadiga ah. kamana maarmaan sida neefta oo kale. neeftaan aan qaadanayna ma ka maaranaa? maya, ayakuna waa saas. waxaa laga yaabaa sheekuu kaaga sheekaynaya, waxbuu kuu sheegaya, 100% waxa uu maantoo dhan kugu gurayo ama kuu sheegayo ama ay kuu sheegayso waa been iyo faan. intee ka dhacday, waxaasaan qabtay, xaggaan aaday, dadaalkaasaan sameeyey. waa qof adiga uu noloshaada iyo horumarkaaga ka xun. marka wuxuu dadaal ku bixinayaa sidii uu kuu dareensiin lahaa inuu asaga kaa sarreeyo, laakiin runta kaama sarreeye, wuu kaa hooseeya oo waxaad adiga haysato ayuu ka xun yahay. okay, number 8 waan isla fahanay. kan ugu dambeeya oo 9 ayaan fiirinaynaa. okay, muxuu yahay? waqtigaaga ayay kaa luminayaan ama waqtigaaga ayuu kaa luminayaa. qofka xun wuxuu mar walba isku dayaa inuu waqtiga been uu kaaga lumiyo. iska ilaali. gaar ahaan waxaa la leeyahay marka ay ogaadaan inay jirto shaqo lagaa rabo inaad waqti kooban ku qabato, waxay isku dayayaan inay waqtiga kaa dayacaan si arrinkaasi aadan ugu guulaysan oo aad ugu guul daraysato. maxaa yeelay guushaada ayaa dhibaysa, adiga guushaada ayaa dhibaysa. okay, kasoo qaad maantay wuxuu ogaaday inaad ballan muhiima leedahay ama shaqo fiican aad soo qabanaysid oo lacag fiican aad kusoo qaadanaysid, ama meel aad rabta inaad ka baastood ka gudubto oo position kale aad u gudubto. wuxuu isku dayayaa inuu ku meermeeriyo qofkaas oo waqtiga kaa lumiyo oo hadhowna lagu dhaho naga raali noqo. maxaa yeelay horumarkaagaas wuu dhibayaa. dadka xunxun wallaahi u fiirsada,
horumarkaagaas wuu dhibayaa, dadaalkaaga wuu dhibayaa, wax kastoo wanaagsan oo aad samaynaysid way dhibayaan. maxaa yeelay qalbiga ayuu ka jiran yahay. marka 9 calaamadood waan isla soo aragnay soo maahan. qofka aad calaamadahan ku aragto ka fogow oo naftaada iyo noloshaada ka dheeree si uusan saameyn kuugu yeelan. maxaa yeelay qofaan horumarkaaga rabin, dadaalkaaga rabin, ku dhiirigelinaynin, markasta lugooyo kugu ah, jecel isaga inuu hormuud kuu noqdo, aanan ogoleyn inaad sinaataan, dadka iskala weyn, qofkaasoo kale waa inaad dhacdhaaca u siisaaba. soo marka asxaabay, intaasaan rabaa inaan kusoo koobo muuqaalkan oo ku saabsanaa 9 calaamadood ee aad ka ogaan karto qofka xun ama dadka xunxun aad ka ogaan kartid. waan filayaa inaad wuxuun ka faa'iidi doontaan sida anigaba marka aan soo darasayay aan oga faa'iiday, oo bointiyo fara badan oo i anfacayo aan oga helay. ayaan filayaa inaad idinkuna oga heli doontaan. wallaahi xaasidnimadu ma fiicno. noqo qof qalbi nadiifa, noqo qof dadka horumarkooda jecel, noqo qof iska qunyar socoda oo dadka aan dhibaato ku ahayn, noqo qof aanan dhib badnayn, noqo qof aanan been aqoonin. intaa haddaad kulansato mar walba habiyaa iska ahaanaysaa, howlahaaga iska qabsanaysaa. haddaad aragto hebelkii aad dariska ahaydeen ama heblaayadii aad isku shaqada ahaydeen oo position sare gaartana waa isaga farxaysaa, hore oga soconaysaa. laakiin haddaad tahay xaasid, haddaad tahay qof xun, mar walba cuqdad ayaa kugu jirto. cuqdadaa siday u socoto oo maalin walba qof horumar gaaray, ama qof aad taqaanayoo wadan qurux badan jooga, ama qof aad taqaanayoo meel sare gaaray, aad kod uga dhahayso, aad uga naxaysid, ugu dambeyntii cudur aanan daawo lahayn ayay arinkaasi adiga kugu noqonaysaa. soo mar walba waxaa qurux badan wiil iyo gabarba, yacni qofka inuu habi iska ahaado, iska faraxsanaado, dantiisa uu wato, laakiin danta ummadda kale uusan ku mashquulin wax waliba oo ay tahay. maxaa yeelay taada ayaaba kaa badan. intaan mar kale kulmayno